guddiga doorashooyinka maamulka Jubbaland oo maalmadii shalay dhaariyay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland waxaa ku jira xubno aad ugu dhow madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe inta badan xildhibaanada la soo xiray ayaa la sheegay inay u badan yihiin xubno aad ugu dhow madaxweynaha Jubbaland iyo sidoo kale dad kale oo ka shaqeynayay hay'adaha kala duwan ee maamulka Jubbaland xildhibaanada ayaa waxaa ku jira askar horay ilaalo u ahayd Axmed Madoobe waxaana sidoo kale ku jira dad kale oo ka shaqeynayay qasriga madaxtooyada u ah iyo sidoo kale xubno kale oo kamid ah saaxiibada musharax Axmed Madoobe waxaana sidoo kale xildhibaanada cusub ee lagu dhaariyay Kismaayo ku jira wariyaal caan ka ah magaalada Kismaayo kana shaqeynaya TV-ga Jubbaland uu leeyahay maamulku hogaaminayo Axmed Madoobe iyo xubno kale oo baraha bulshada ka taageeri jiray Axmed Madoobe dadka siyaasadda falanqeeya ayaa rumaysan in ay iska caddahay natiijada ka soo bixi karta doorashada haddii ay wax dooranayaan xildhibaanada maalmadii shalay lagu dhaariyay magaalada Kismaayo odayaasha dhaqanka ee Jubbaland ayaa lagu amray inay soo gudbiyaan halkii kursiba 3 musharax si hal xubin ay guddiga uga soo xulaan waxaana xildhibaanada la xulay dhammaan ay yihiin kuwa uu keenay raalina uu ka yahay hogaamiyaha maamulka Jubbaland musharaxiinta ka soo horjeeda Axmed Madoobe ayaa qaadacay xildhibaanada maalmadii shalay lagu dhaariyay magaalada Kismaayo waxayna iyagana dhankooda ay magacaabeen xildhibaano cusub oo ay sheegeen inay yihiin kuwa xalaal ah halkan waa Cirfid Media fadlan subscribe saara mahadsanidin